maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ciqaabta waaxda tashiga maanta oo khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 8aad 2020ka waxa maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 258 2020ka eedeysana ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahim ina Xaliime Maxamed Saciid konton iyo 32 jir kuna eedeysnaa qodobada 241 363 366 367 375 376 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kaasoo kiiskiisa maxkamaddu u soo fadhiisatay shan fadhi dacwadeed xukunka maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xatooyo xoolo dadweyne maadaama uu kootadiisa gaarka lagu shubay lacag dhan 202,000 oo dollar isla markaasna uusan wax difaac ah u keenin qaabka ay ku baxday lacag dhan 105,907 dollar sidoo kalena uu lunsaday lacag dhan 32,000 oo dollar oo adeeg aan jirin oo wasaaradda caafimaadka kaga qaatay kareynta baabuurkiisa khaaska ah waxay kaloo maxkamaddu ku heshay qodobada 363 366 waxayna ku xukuntay 10 sano oo xariga iyo ganaax lacageed oo dhan 59,173,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta 2,366 dollar sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacag ta uu lunsaday oo dhan 137,907 dollar xukunkan waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka 101 iyo qodobka 102 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed dhammaan dhinacyada waxa uu furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu sheegay kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso maanta oo khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 8aad 2020ka waa kiiska nambarkiisu yahay 247 2020ka uu eedeysana ka yahay Cali Sheekh Doon Cabdi ina xirsiyo warsame rooble 46 jir ahna mulkiilaha shirkadda Maamuus General Contracting and Service iyo madaxa hubinta Commitment Control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya kuna eedeysan qodobada 251 241 280 iyo 281 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku heshay Cali Sheekh Doon qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne 251 ku danaysa xafiis iyo 280 waxaana ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 88,725,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta 3,549 dollar sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan 58,505 dollar xukunkan waxa uu helinaya ka reebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay kala noqotay xukunsanaha damaanadii uu ku joogay dhammaan dhinacyada waxa uu furan rafcaan ku siman inta uu sharcigu jideeyay kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysaa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 248 2020ka eedeysanayaal ka kala yihiin 1 Aweys Xasan Cumar ina Xaliime Muuday Nuur 62 jir kuna eedeysan qodobada 251 241 280 iyo 281 la akhriyo 71 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo eedeysanaha labaad Khadar Aweys Xasan ina Saara Xabiib Axmed oo 26 jir ahaana maamulaha shirkadda Al Xabiib Business Center
kuna eedeysan qodobka 280 iyo 281 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. xukunka maxkamadda waxay ku heshay eedeysanaha koowaad Aweys Xasan Cumar waxay ku heshay qodobka 251 ku danaysa xafiis dawladeed waxaana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta $1,183. eedeysanaha labaad Khadar Aweys Xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 280 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaana ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $1,183. dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku suman muddada uu sharcigu jideeyay. maxkamaddu halka inoogu joogto maxkamadduna inoo xirantay billaah tawfiiq.